kulanti wacan oo wanaagsan daawadeen hantiin ba meel kasta oo naga daawanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkii dhanigooda toddobaad kasta ka daawataan True Cable TV toddobaadkan uu marti noogu yahay Axmed Xadaari ama saad taqaanaanba Xadaari Geesi Xadaari ku soo dhawo barnaamijka marka ugu horeysa horta waan ku dhawahay barnaamijka True Cable aad baan ugu mahad celinayaa television u helan dhalinyarta sports haday noqotiyo iyo meel kale haday noqotoba waan ku dhawayaa Xadaari intaynan gudagin sheekadii bal ugu horreyn waxaad naga warbixisaa xilligaad soo gashay social media adigoo meelahaas un baa laga arkay adigoo raadis ku jiray social media wallahi meel kale kaga ma jiro horta xagga TikTok tun baan kaga jiraa markii ugu horeysay soo galayna waxa ahayd 2022 bilowgiisii ayaan aad u soo cadaaday aan uga soo ifbaxay TikTok dadkuna aad ii soo yara barteen markaa ma sheekadun baad ku soo gashay mise waxa jirtay jiliimo hore markii ugu horeysay soo galayba TikTok waxaan ku soo galay magac Xadaari Fulay oo kala oo waxaan sameyn jiray baqdin oo kale intaan dadka isku doontaan ka baqi jiray marmar ciyaal bay erin jirayba Xadaari Fulay baan ku soo galay markii hore waayahay maxaa kugu kalifay ka soo muuqdo social media ama bulshada u soo jeedisid waxaan filinayno hore loo arag xilmi ku dhalatay mise wallahi waxaan horta fanaaniintu marka la leeyahay fanka maxaa soo gashan wiiga dhex gooxayin baa la moogti anna majaajiladan iyo wiiga dhex gooxaysan waayo asxaabta markaan isla fadhino ma aragtay ayuun baan ka qoslin jirin kadibna iyagu bay guuruniyo umaad social media haba gashid baniyo oo annaga naga qoslisay dad badan ka qoslis saasay ugu kaliftay ismaan lahayn wallahi heerkan aan taaganay bad gaarsa waayahay soo gadal sheekadan ma mid adiga khusayso oo dabka ahayd baahed mise waxa ahayd jiliin ad bulshada ka qoslinayso wallahi horta sheekadan waxay ahayd horta bulshada dadkii way ku dhex jirtaa oo waxa imka bulshada ugu badan dhalinyarta waxa la hadlayaa guur adu maxaad guursan weyday adu maxaa ku kalifay guurkii adu maxaa bulshada ugu badnaan waxa dhalinyartu hadal haynto badan magaranaysa ugu badan ba waa guurka taasay ugu kaliftay markaa anayadoo majaajiliyo qosol isku jirta iyo iyadoo dadkuna ay u qaadanayaan inaan qodob muhiim ka hadlayo dhinacna majaajila kaga jirta aan soo gudbiyo waa hadal haynta dadku bulshada waa wax ku dhex jira way markii kugu horeysay aad keento sheekadan la daawado ay dadkii ay wada daawadeen bulshada maxay kaaga soo ficilsay ku tiri markii meel ku waar wallahi horta bulshadu ba qofka ku dhiiri gelisay moogtay markaan aan arkay bulshadiyo aad u jecel aan magaalada ugu horeysay Sool bay ahayd laascaanood baan u doontay kadibna aniga dadkiiba aan waxba weydiin ayaan biguudaan gobolka ku soo xigsi sidii markaas aan gobolada u waday ilaa aan dibadda Yurub iyo America tagay waayahay markaad gobolada tagaysay Soomaaliland waxa jirtay gobol walba Istanbul leeyahay dadku waxbay ku xantaan ma astaantii gobolkaas aad la imaneysay mise jiliinkaagu badwatay inantu baraadisay way gobol kasta jiliinkiisa la imanay imka burco kale oo isku soo ekeysinay mididii baan halka ku soo qaadanay maxay ahaydeen berbero kale odayaasha waxaan u geliyay garanfiinayaal calashan way kululiyeen kale waxaan isku ekeysinay marba halkan tagayo odayaashu waxay xitaa dhaqan u leeyihiin bay weydiin jireen inamada aanu imanaya ama inamada odayaasha iska dhigaya imka laascaanood kale gobolka awooyaasha kale awoobaan iska soo dhigayba markaan tagay xagga iyo Puntland sida odayaasha Puntland ay inanta u siiyaan dadka ayuunba iyaguna markaan Yurub gaadhay laakiin ugu darnaydo markaa wallahi anagu ba sameeysanay way Xadaari waxa soo xirtay inta badan kaba waaweyn nigiteen weyn iyo surwaal weyn dharkaasi qoslitaan u bana dadka ka qosaysid mise waxa weeyaan dadka xidha gobolada leedahay way wallahi waxay ka qayb qaadanayaan ka qoslinta dadku bay ka qayb qaadanayaan waayo haddaan sideeda ku soo dhigo laga cajisay moogti xitaa hadal yar qosala heesa qosala dharko qosala iyo dhinacna muhiimad bay kaga duugantay oo hebel inan buu diidaya dhinacna waan ka qoslinayaa dadka
sayna uga caajisin baan doonayaa aan dharkaa waaweyna usoo xidhaa oo calashan ha qoslaan oo kalete ayuun baan ayuun usoo xidhaa. waayahay imika tiktok aalada tiktok baad ku jirtaa misleedahay xadaari oo kasii gudubtay aalada tiktok meelo kale maadaama ay dad badan ku daawadaan bulshada badan ay jirtaan dhalinyaro badan oo kugu dayata. way jiraan horta qof horta anaguba dad youtuberayga waaweyn ama dad kolayga waaweyn majaajilaystaan ku dayda way jirtaan wax kastoo daad samaynayna qof ka da-yar ama qof kolaagbada kaaga dayan karaya oo ceeb maaha. insha Allah waan ku rajooynaa inaan heer ka sareeyo gaadho youtuber weyn caana oo bulshada cod dheer dadka wax ugu tabiyo insha Allah inaan noqdo ku rajooyn. sheekadan ma jeceshay inaad sii wadid raadista inanta? wallaahi horta iminka waqtigii gabagabada ku jirtaa ma ogti insha Allah inantiyan helaya araaskii baaray ay baaray intaas oo sugnaa waayahay social media taariikh maxad ka aaminsantii inuu yahay social media horta qof sibu isticmaalaa qofba mid xagga xun buu ka galaa mid xagga diintu soo gudbiyaa mid majaajilo qosolo iska yar nafiisu soo dhigaa social media anu wax xun ma haysto laakiin adiga wax xun ka dhigan karay baan ku leeyahay qofku suu isticmaalun buu ayun buu xumeyn karayaa haddaad adoo qaawan isa soo dhigtana aduunba xaggii xumeyd ka galay haddaad adigoo caadi soo dhigtiin aadanba caadi ba soo dhigtay laakiin social media wax caadiya dadkoo dhan way ku wada jiraan wax caqabada ma kala kulantay dad kala jirtay social media wax aniga caqabad igu ama sheekada horta wallaahi caqabadaheegu ma soo koobi karayo halkan kuma tirin karayo waxa caqabadaan kala kulmay waxa kamid ah kabayaashii igaga dhamaaday iyo maraan laaban iyo kale ooda dharka iga jeexo oon maalmaalin iyo marmarka qaar oo moolku dabka naga dhaco iyadoo meel macaan noo marayso iyo maxay haydeenay iyo marmar kaliibka qosol awgeed la duubi kari waayaba waqtigu naga dhacaan baraan doobanayna marya caqabadahaasa ku jira laakiin caqabadahaas si waaweyn weli kala way codkan inta badan aad ku soo gashidee aad tirahdid waa mid aad samaysatay adiguba waa midaan anigu igu dhashay inaan samaystay maxay haydeenay ismana lahayn wallaahi codkan waa lagugu taageerayaa ismana odhan waa cod cusub aad la soo baxday dadkunba baray aniga inaan codkan cusub yahay iguna yidhi sidaad yar noogu hadal markaan arkay dadka igula sidaad yar noogu hadal ayaan nidhiba waa cod cusub dadku markii kaa soo horbaxaan iyagoo ay daawadaan sida u hadlaysid ku kacanjilaan markay ka hor imaadaan kelmadahayga igu yeedhaan badanka ay ka mid tahay waarye oo kale iyo iska tegay kelmadahaasi badankii adeegsadaan ilaa wadan intee leeg baad isla gaadhid ma inanta doonisteeda wallaahi de horta wadamo intaan gaadhay weyn gaadhay laakiin gabagabadii baa iminka hadhay wadamadii horta waan soo dhameeyey waxaa iminkaan ku jiraa aan inantaan u tagaa badanka oo inantiian ka xishoodaan la hadli kari waayo inantoo intay taabato aan ka baqayaba halkaasaan maraya iminka waan dhadhowahay waxaan ku rajoogayna inaan inanta isfahano insha Allah arooska noo dhacay waayahay Dario ugu dambeyn bulsha ku daawatay dhalinyaro badan maxaad kula talinay maxaad soo jeedin lahayd horta wallaahi waxa jira dad badan oo maxay haydeenay sida anigu ahaan ama sida dadka oo dhan yihiin wax soo gudbiya qosala oo aan laakiin kamarad soo hor istaagin dad badan dad badan hadday doonaan maba transkrayaan ma garanaysaa laakiin dadka waxaan ku leeyahay dadka cod dheer wax ugu gudbiyo kaalayo naga qosliya dadkay daawada talent ugu jira balkaalaya anigu bas aan socday aniga meeshii dalaq soo yidhi taageerayaashayda ama asxaabta igu xidhan waxaan leeyahay idinkunba wax naga dhigay waxaan halkan ka salaamayaa qof kasta maqayga iyo magacayga ba yaqaana ay asxaabtayda ila jisha ugu horeeyaan iyo adigoo igu horeysanaya aan ku salaamayo salaan ka soo go'day kashkiya laabta way xadaare bal waxaad nagu soo yara bandhigtay halkan codka TikTok ama aaladaha ku soo gashay TikTok inkastoo horta iminka iga maqan yahay saaxiibkaygii weydiinayay su'aalaha haddana inteediin baan odhanayaa waxaan tegayaa niyow burcaan tegayaa niyow inantii waan doonayaa niyow iyo maxay haydeen iska tegayaa niyow iyo marmarka qaarna isagaan buufiyaa naga teg nacala khasiiska kaaga yeelay mid indaa laag inantaa nala doonine mkaan iska tegaa absoo ku salaamaya niyow inta badan xadaar waxaad hees u leedahay kelmado ingiriisi aad adeegsato
ama jaabirso ay ka mid yihiin kelmadaha horta wallahi waan isku keenkeenaa carabi maxay ahaydana ingiliishi af soomaali waxaan saas ugu dhex qasnaa waxa ka mid ah which the green plus and slow motion ha iyo waxa kale ka mid ah love cof hiding meel aan loo qaadan jirin iyo it for self for lazy iyo markaan iska caayo kalaan ku dhaa naga taga nacla tuu kalbiga aan wan dhagan igaga yeel oo warwarkayga xanaajiyaan wogti waaya aad iyo aad baad mahadsantahay xadaari sidaad barnaamijka nagala qayb qaatad noogu qoslaysa aniga daawadayaasha aad baan kaaga mahadcelinaa waqtigaagan soo siisay daawadayaal intaas waxay nagu soo dhamaaday barnaamijkii dhan wadaaga toddobaadkan martii uu ahaa xadaari geesi sidoo kale waxaan u mahad celinayaa jineerka barnaamijka ama kabaramaanka barnaamijka idinku howlan mar walba barnaamijyada aad ka quruxda badan la daawataan jibriil aadan oo u mahad celinayo iyo anigoo sagal maxamed fuxaali tin barnaamijka xiga iskugu iman doono waxaan degdegina salaam allah